يا تنازل بالي الكبر قروي تو قروي حاجه وراعيسه يا جوج يا تاريخ ما قران waxaa runtii sharaf iyo karaamo noo ah in madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu maanta nagala soo qayb galo xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii 8 bisha January ee Puntland shacabka reer Puntland iyo Soomaali guud ahaanba waxay u ahayd runtii sharaf in doorasho si degan oo xalaal ay ku dhacdo waxaan aad uga mahadcelinayaa madaxweynaha oo runtii aan garow ku cusbeen marar badan yimid dawladnimada Soomaaliya qayb weyn ka soo qaatay inuu maanta madaxda naga soo ajiibtay oo noo timid uu kamid yahay si gaar ah ayaan mahad gaar ugu celinayaa waana soo dhaweynaynaa madaxweynaha soo dhawow bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuuli bacd marka hore waxaan rabaa mar kale inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha guusha ku guuleysay doorashada sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo siyaasiyiinta reer Puntland iyo shacabkoodaba sida wanaagsan oo ka dhawaajiyay oo doorashada u dhacday aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda caleemasaarka sida madaxweynuhu uu sheegay uguma cusbo garowe dhowr jeer aan imiday laakiin wax badan oo fiican iga dambeeyay marka waa ku hambaliyeynaa taas garoonkan iyo VIP da aan fadhino markaas hawshooda ugu jiray marka waxay muujinaysaa intii ififaalo fiican iyo horumar ay muujinaysaa doorashadu dhacdana waxay dhiirigelinaysaa in Soomaalidu ay u bislaato siyaasadda sidaas oo kale waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo madaxweyne Cabdiweli sida uu natiijadana u ogolaaday doorashada xalaashaan u hogaamiyay marka waxaan rajaynayaa in Soomaalidu ku daysato arintaas hay'ad anaga hadda mushkiladeenu waa siyaasadda mushkilad kale ma jirto marka siyaasaddu hadday caddahay oo tartan fiican oo xalaal ah jiro waxay horseedaysaa nabad iyo kalsooni ay horseedaysaa isla markaasna cid soo baxday in la shaqeeyo si wanaagsan loo shaqeeyo guul iyo horumar insha Allah